بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kan ka salaamayaa bahda saxaafadda sharafta leh ee ajiibtay imaashii aan u yeeray caawo oo ay taariikhdu tahay 8 bisha shanaad 2020 saacaduna ay maraydo 11 habeenimo saqdhexe waxaan rabaa halkan inaan ka soo gudbiyo haddaan u gudbo shir jaraa'id oo aan rabay inaan uga hadlo waxyaabo badan oo ay ugu horreydo koow inaan halkan ka salaamayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka masar karfaan iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliye xajaar iyo taliye xigeenadiisa waxaan rabaa inaan u gudbo mahadcelin waxaan u mahad celinayaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaasha la shaqeeya oo 20kii bishii labaad 2020 ii gartay mas-uuliyadda maanta aan hayo oo ah taliyaha ciidanka booliiska caasimadda galmudug ayadoo ay xilligaas ay ahayd taariikh caawana aan doonayo inaan soo gudbiyo taariikh ka duwan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idhaahdo mahad idin ka gaarto sida aad iigu magacaawdeen ama aad iigu doorateen shaqadaydii intaas kadib waxaan rabaa inaan u gudbo inaan ammaan iyo bogaadin u soo jeediyo bulshada caasimadda galmudug ku nool iyo deegaanada la xidhiidha oo xilligii shaqada aan soo galay oo shaqadaydii la igu wareejiyey oo ahayd 25kii bishii labaad 2020 laga bilaabo iyo haddoo ay tahay 8 bisha shanaad 2020 sida wacan oo wanaagga ku jiro oo mas-uuliyadda ku jirto oo ay ila shaqeeyeen ama ay igu soo gudbinayeen xogaha iyo wixii ka jira deegaanka hadday tahay waxyaaba la xiriira ammaanka sida argagixisada iyo dadka la midka ah hadday tahay dhibaatooyinka caadiga ah oo bulshada ka dhexdhaca siday ila wadaagayeen ama ay u sheegayeen booliiska xaalad walboo taagan oo deg deg ahaa waxaan rabaa ammaan iyo bogaadin inaan ugu mahad celiyo caawa oo aan idhaahdo waa ammaanantihiin ilaahayna ha inka abaalmariyo intaas kadib waxaan rabaa shaqooyinka aan soo qabtay inaan wax ka taabto intii aan shaqaynayo waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha caadiga ah ee shicibka dacwooyinka hadday tahay arrimihii kale sugidda amniga ee la xiriira baraha koontaroolada iyo wixii soo gelaya magaalada iyo wixii ka baxayaba waxyaabahi aan soo qabtay waxaa ka mid ahaa kiisas dil ah hadday tahay kiis dila oo ka dhacay reer dhexdooda ka dhexdhacay hadday tahay kiis dila oo ka dhexdhacay ciidamada oo aan maareeyey oo aan gacan ku soo dhigay raggii dilka geystay oo caawa ay yihiin ilaahay mahadiis maxkamad sugayaal waxaan rabaa inaan ammaano shaqadaas intaan gudanayey inuu qayb uu ka ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo halkan noogu yimid shuute oo ah janan ka mida saraakiisha soomaaliyeed ayadoo uu igala qayb qaatay ama aan ka wada shaqaynay hawshii tartiibinta maxkamadda dilkii allah u naxariistay shaafici oo ka dhacay deegaankan ayadoo aan ku soo gebangabaynay si wacan soona gaartay heer xugum dhaco haddana insha allahu tacaala ay dhici doonto xukumkii in la fuliyo ilaahay idankii intaas kadib waxaan doonayaa inaan u gudbo caqabado shaqo waxaa jiray intii shaqada aan ku jiray caqabaad aan la kulmayey waxaa main pointiska ah ama ugu weyn caqabaadka aan la kulmay shabakado shaqaynaya oo isku xidhan oo deegaankii soo gaaray oo u dhisan dal iyo dibad dhaqaalana aruursanayay oo aan intaan shaqada ku jiray taariikhda marka ay ahayd 24kii bishii saddexaad 2020kii xilli habeennimaahoo 11 iyo 50 daqiiqo inaan gacanta ku soo dhiga 2 eedaysane oo markii koowaad markii hore ay ii soo gudbiyeen shicibka dhinac aqoon la'aan kadib markii aan soo qabannay booliiska ay keeneen xilligaas habeennimada ah saldhigane aan la xiriirinay oobiga sida sharciga ah ayagoona meeshaas aan ugu qornay qoraal sasbaktina geliyey oo inay kala hadleen ah warbixinta ay dhiibeen kadib waxaan samaynay baaris fudud ama markaas deg deg aheed oo ku saabsan waxyaabaha ay isticmaalayeen moobeellada annagoo aan ku aragna kiisas u baahnaa shabakad ahaan in la dabagalo haddii ay kiis ku soo yeeshaana lagu qabto hadday kiis ku soo yeelo waayaanna sida sharciga ah booliiska soomaaliyeed oo fasaxooda uu siiyo nasiib darra ma dhicin waxaan xidhay 24kii bisha saddexaad 2020 xilli saqdhaxa ah waxaa la sii daayey nimankaas tuhmanayaasha ah oo shabakadda ah oo aanan hore u joogi jirin deegaankan
ninka ugu dhowna oo ku soo biiray habeen kin kalena oo ka horreeya maalin in awood la iigu sheegtay in la sii daayo oo aan loo oggolaan baaris xitaa qaadatay 6 saac waa dareemi kartiin labadii habeennimo saq dhexe ayaan waxaan u dhaadhicinay stationka inaan ku xirnay kadib markii aan oobiga marinay 3 saac subaxnimada cagajugleyn iyo awood sheegasho waxaa la sii daayey maxaabiistii labada ahaa oo shabakadda dal iyo dibad isugu xiraa waxyaabihii macluumaadka ahaa ka aruurina intii aan haynay oo saacadaha ahaa ama aan aragnay ayadana la dafiray ee nalagala wareegay si macnaha aan ku dhisnayn sharciga anoo xaq u lahaa taliyihii saldhigga dhuusamareeb inaan baaristaas meel aan geeyo haddii ay kiis soo yeeshaanna aan la soo wadaaga madaxda iga sarriida shaqada hadday kiis yeelo waayaanne aan la soo wadaaga madaxa shaqada ila laheyd oo ay ahayd shaqo aan gutay ama waajibkayga ay ahayd kadibna la siiyo madax bannaanidooda nasiib darra mana dhicin waxaa mar labaad soo laabtay dhacdo kale 29 bisha afaraad 2020 waxaa la soo xiray nin dhallinyaro ah oo muqdisho ka yimid oo sida aan warbixinta ku helnay deegaanka iyo meelo ka baxsanba lagu eedaynayo xiriir al-shabaab inuu shaqooyin noocaas u soo aaday caasimadda galmudug isla 29 bisha afaraad xog kadib waa soo qabanay waa soo xirnay 4 bisha shanaad oo hadda aan ku jirno 2020 anigoo goobta shaqo ka maqan ayaa la sii daayey eedaysanihii ayadoo loo gudbiyey degmada Cadaado lagana sii daayey saldhigga caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ma aysan jirin in la sugo in kiiska aan baaraynay ama howlaha u imaada shaqo ahaan xiriirka uu la leeyahay argixisada intaba inaan ka gungaarno oo meel aan gaarsiino waa ayaan darro saldhiggii shaqadiisa aan hayna haddiina lagu aamini waayey inaan baaris ka samayno ama ay si fudud qolyaha macnaha argixisada ay u helayaan xogta dabaca ama habaca ka jira dhinaca shaqada ee la xiriira ammaanka lambar 6 go'aan kadib markii intaas aan soo sheegay ay dhacday bulshada caasimadda ku nool galmudug ama bulshada soomaaliyeed waxaan go'aansaday inaan mas'uuliyaddayda hoosteeda dhib ku gaarin haddii aysan jirin in deegaanka amnigiisa aan la kontarooli karin ama aan shaqadii naloo igmaday ee dowladeed ee ahayd mas'uuliyadda ugu weyn ammaanka inaan sugno dadka soo galay deegaanka ama shabakaadka isku xihan aan la ogaa karin waxa ay qabanayaan iyo waxa ay wadaan haddii ay wax dhib noole ay yihiin iyo haddii kale waxaan go'aansaday inaanan bulshada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada caasimadda galmudug ku dhaqan inaanan qiyaanin aanoo meesha shaqada ka hayana aysan dhicin dhibaatooyin dhib geysta ama sababi kara dhimasho iyo dhaawac ama burbur hantiyeed sidaas awgeed waxaan rabaa inaan caawa caddeeyo halkan ka caddeeyo oo ay tahay taariikhdii aan hore ku soo xuso 8 bisha shanaad 2020 saacadduna ay tahay 11 habeenimo shaqadii aan u hayay mas'uuliyadda reer galmudug gaar ahaan caasimadda galmudug dadka la xiriira iyo caasimadda gudaheeda inaan xilligan laga bilaabo shaqadii aan hayay aan iska casilay sidaas darteedna insha allahu tacaala aan ka codsanayo dowladda inay si degdeg ugu soo magacaawdo mas'uul shaqadii aan hayay sii wada diyaarna aan u ahay insha allahu tacaala sidii sharafta laheed oo aan ula wareego shaqada ama la igu wareejiyey anigana inaan u wareeji doono shaqada ilahay idankiisa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi